السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركز عشركي cilmi-baarista. عشركي أنا وعشركي طلاب وأنا عبد شافي شريف دي سجلت دور إن شاء الله دخل صوصه. عشركي أنا وحاول أسافر هاي قاب كلام problem statement كمحلي قانون بيان كديباتنا. وحنا حبون اللي وقالوا cilmi-baarista لما مقال أما لما سمع research الناس لهايو ديباتنا جرتوا ومركز research كدير ده إسرائيل. haddii aysan jirin dhibaato oo markaas taagan oo cilmi-baarista ay maqaadayso researchkaas waxay u baahan tahay inay guuldareysato si researchka marka cilmi-baarista u guuleysato waxaa habboon cilmi-baaraha in uu la yimaado problem cad la fahmi karo laguna gaari karo muddo kooban waxaa habboon in aanan la soo qaadanin problem aad u tiro badan waa qasab adduunyada waxaa ka jira dhibaatooyin aad u fara badan haddaba marka dhibaatooyinka badan ardayga ma wada xallin karo waxaa ay taasabtu waqti kooban ayuu haystaa waxaa laga yaabaa 3 bilood haddii uu degree diyaarinayo 6 bilood haddii uu master diyaarinayo PhD 1 ilaa 2 sano ilaa 3 sano marka haddii aad problem aad u tiro badan soo qabsato waxay keeni kartaa waqtiga loogu talagalay inaad dhammaynin qarash badan uu kaaga baxo ugu dambeyntiina aad gaari weyso hadafka aad ku leedahay researchkaaga sidaas aawadeed casharkan waxaa muhiimadda saaraya in ardayga loo sheego in problem kooban oo wax ka qaban karo muddada uu haysto uu qaato problemka aad xaguhu ku imaanaya problemka waxa uu ka imaanaya cilmiga ama qaybta aad baranayso ama waxa aad cilmi-baarista sameynayso haddii aad caafimaadka baranayso oo caafimaad aad ku qorayso raadi problem iska jiro area caafimaadka haddii aad dhaqaalaha baranayso raadi dhibaatada ka jirta area dhaqaalaha sidoo kale arrimaha bulshada ganacsiga iyo siyaasadda haddaba haddii aad hesho marka problemka researchka oo aad soo koobto oo aad soo qaadan problem aad u weyn waxaa kaloo habboon in aad dhibaatada waqtiga la socdo inay ahaato dhibaatada aad qaadanaysa aysan maqanin dhibaato mar hore laga soo tego waa inay ahaato dhibaato markaas taagan dadkana anfacayso si researchkaagu u noqdo nooca loo yaqaano applied research oosan u noqon bio research dadku waxay u baahan yihiin dhibaatada markaas taagan in cilmi-baaris laga sameeyo waxaad soo qaadan kartaa dhibaatooyinka maanta teknolojiyada ay ku leedahay caalamka dhibaatooyinka teknolojiyada maanta ku leedahay dhalinyarada saas oo kale dhibaatooyin la xiriira teknolojiyada keen dan ina research ka samee oo cilmi-baaris ka samee markaas waxay noqonaysaa cilmi-baaristaadu mid xalaaladeed dadkana aad u jeclaystaan sidoo kale waxaa habboon inaad su-aalo isweydiiso oo ah dhibaatadan maxaa keenay xaggee ka imaatay yay saameynaysaa haddii aan dhibaatada waxba laga qabanin maxaa dhacayo soo si marka qofka uu akhrisanayo uu ogaado yes tan waa dhib jiro waana sax in lagu sameeyo research si looga qabto oo dadka ay qusayso wax ugu qabtaan haddii marka dhibaatadan aadan ka soo dhigin mid up to date oo aadan isweydiin yaa dhibaatadan sababay haddii aan wax laga qabo maxaa dhacayo yay saameynaysaa iyo xuduudo la yidhaahdo xaggee bay gaaraysaa dan adigna kuma cadda qoraal uma cadda akhristaan uma cadda waxa researchka ay doonayaan iyo meesha in la gaaro sidoo kale waxaa muhiim in la isweydiiyo marka la qorayo cilmi-baarista 3 arrin oo ama marka la qorayo bayaanka dhibaatada problemska in qoraaga uu dhaho 3 arrimood number 1 maxaa la rabay inay sidee rabay wax ahaadaan waxaa la rabay in wax walba ay si fiican ahaadaan laakiin xaqiiqda hadda jirto waa ay ka duwan tahay haddii marka wixii la rabay dabacsanaan sidii rabay inay fiicnaato sida maanta jirta ay ka duwan tahay dan problema jiro haddii aan marka sida maanta wax ku socdaan waxba laga qabanin futureka maxaa dhacay soo marka waa in ay saddexdaas area tahay marka aan qorayso problemkaaga number 1 waa in laga arkaa maxaa habboon waxa wanaagsan oo rab inay sida wanaagsanina wax ahaadaan hadda maxaa jiro waxa hadda jiro ma ka duwan yihiin wixii la rabay inay wax ahaadaan haddii ay ka duwan yihiin consequence-ga ama cawaaqibta ka dhalan karta maxay tahay haddii marka saddexdaas aad si cad ugu sheegto qofku wuu arkaama waxaa rabay inay wax sidaan ahaadaan maanta sidaana wax yihiin haddii sidaa lagu jiran dhib waa usii badana soo darteliso waxaa loo baahan yahay in dhibaatada hadda jirto ay keentay in wixii la rabay la gaari waayo wax laga qabto ee research lagu sameeyo haddaba marka problem statementigu waa muhiim research lama ambaqaado ilaa in problem statement jiro problem statementiga waa inuu ahaada mid waaqica oo xaqiiqda la socdo waa inuu ahaada mid aan iska dheeraanin sababta waxaan ku sheegnay waqti kooban ay haysataan iyo qarash kooban waxaan u baahan tahay problem lagu gaari karo xilliga kooban ee haysato waxaa kaloo
isweydiiso problemkan miyaha mid existe oo jiro weliba maadada aad wax ku qorayso waa in waxay leeyahay ha soo qaadan problem inta ka soo qor inta ka soo qor inta soo qor 20 problem inta soo keento mid qaadanayo iyo sanaqon haddaba cashirkeeni maanta ku saabsanaa qorista problem statement-ka waxay yaqaan bayaanka dhibaatada waan uga hadalnay sidee haboon xagee laga helaa maxaa lagu ogaadaa in problem statement-kayga uu yahay midkii saxda ah إن شاء الله إنت سأمسكوا هنا العشرة دم أيام تساوي الحلو قام problem كجرو لو قرن أيام تسوق على الدماغ وأنا بعد التشافي شريف محمد إذا حكينا لنا هنا ونجلس على تي في فيديو ونصور له اليوتيوب كان تاني دبوا هذا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.